waxaana u diidanaabay tiri sababta loo safrayo hadday tahay ilaahay raadintiisa xaqiiqda ilaahay iyo jacaylkiisa ay tahay meesha ilaahay ku helaya waa masar gudaheeda meel lagama safrayo dib walbo aan kala kulmanay ilaahay helitaankiisa waan u dulqaadanayaa sidaa ayada ayaan ku fakarayay oo inaan baxo ma rabin wariyaha wuxuu weydiiyey su-aasha weydiinayo warqaddii ugu dambaysay reerkiina soo gaaray ma adigaa soo gaarsiiyey waxay ku tiri maya gabadha saaxiibtayda dibadda ku maqan ayaan u diray si ay reerkayga u soo gaarsiiso reerkaygana ay u dul dhibka ay iga qaadaan iyo culayska waxay leedahay anigoo baaltooga ku jiro waxaan ku bartay haweenay masiixiyada magaceeda Shiriin haweenaydaasoo mar aan ku qaabilay ayada iyo ninkeeda meel aan ku qaabilay waxayna ii ahayd tii ugu xirtay baadariga Zakariya Budrus ee waddanka Maraykanka ku nool iyo kooxo Kirishtaan oo dibadda ku nool ayay igu xirtay waxay leedahay ma awoodin inaan la xiriiro sababtoo ah ma aanan haysan kombiyuutar ama taleefanka mobaylka ma aanan haynin waxay i siisay magacyadooda dhowr baadariyaal ah ayay i siisay kuwaasoo haddii aan wax u baahdo i caawinaya gacantayda iyo garabkaygana noqonayo waxay leedahay kadib way iga mashquushay wargeyska isbuuc waxa uu ahaa tu soo baahaysa qoraal oo ay sheegtay anigii la iga qoray bay tiri gabadha taasoo ah in gabdhaha qaarkood si aan magacayga loo caawinin aniga aan kaalmaystay waxay leedahay gabadhan ayada ah Zaynab la yiraahdo mid ka mid ah baadariyaasha Budrus dadka caawiya ayaa wuxuu igu naseexeeyay igu waaniyay in aan aado mid ka mid ah baadariyaasha kaniisadaha injiilka ugu waaweyn waddanka Masar gudihiisa kuwaasoo kaa dhigaya baa la yidhi sooro ka shaqaysa kaniisadda magac iyo shaqana ku yeelaya adiga iyo gabdhihii kale waan dhaqaaqnay bay leedahay annaga iyo gabdhihii waxaan aadnay mid ka mid ah kaniisadaha waaweyn ee ku yaalla bartamaha Qaahira baadari magaciisa ay kusoo gaabisay MC ayaan aadnay laakiin waxay leedahay muddo markii aan joognay waxa uu diiday inuu keligay ila kulmo aniga waxaan idhi ma doonay dadkan inay la soo galaan waxaan rabaa su-aalo khaasa inaan ku weydiiyo wuxuu ogaaday waswaas badan inuu igu jiro wuxuu ka baqay markaa in wax kale ayna dhexmaraan ama muran markaa kadib haddana waxay bareen buu leeyahay baadari kale oo caan ah oo kaniisadda orthodoxiga ah jooga ku yaalla muxuu ahaa Qaahira gudaheeda magaciisana MY kusoo gaabisay waxay leedahay kaa ayaa wuxuu iga dhigay sooro taagan oo magac leh ayuu iga dhigay wuxuuna ii bixiyey magacaygii uu iga bedelay Kristina ayuu ii bixiyey wuxuu i siiyey duruus fara badan iyo buwaag fara badan ayuu i siiyey wuxuu ahaa bay leedahay gabadhan inuu idalaacsiiyo ayuu qarka u saarnaa jagada aan haysa jaga ka weyn uu isiiyo dhowr ballan buu ii qabtay laakiin waqtigaa isaga ah intii ballanka aan ku guda jirnay xilliga aan sugayey waxaa gacanta lagu dhigay xaaskiisa iyo isaga ayaa gacanta lagu dhigay oo dawladdii ayaa ogaatay inay wax kirishtaamaynayaan Zaynab waxaan weydiinay buu leeyahay dareenka qoyskeeda ay ka qabtay xilligaa isaga ah way ilmaysay indhaheedii biyo ayaa kusoo buuxsamay waxayna tiri aad baan ugu murugsanaa jacayl badanna aabbahay hooyaday walaalahay waan u qabay dhowr jeer baan ku fakaray inaan usoo laabto guriganagi laakiin saaxiibadayda sheekada faraha badan ay maskaxda iga buuxiyeen iyo cabsi aan ka qaba ehelkayga inuu dila haddaan imaado ama uu ii diiday guriga soo gelitaankiisa ayaa igu kalliftay in aan usoo laaban waayo reerkayga isaga ah waxay leedahay gabadhan ayadoo sheekadeeda sii wada waxay leedahay murankan iyo doodan faraha badan gudahayga ku jiro muddo badan ayuu ku jiray ilaa uu geeriyooday baadariga Mikhaa'il la yiraahdo wuxuuna ahaa nin da' ayuu ahaa ka fariistay kaniisadda iyo hawsheeda waxaan ku bartay mid ka mid ah kaniisadaha xiriir adagna waan la samaystay wuxuu i bari jiray diimaha iyo waxa uu yaqaano ayuu bari jiray waxay leedahay waxaan dareemay markii uu geeriyooday nafsadayda argagax bay dareentay fakar dheer baan bilaabay ninkan uu dhintay xaguu u socdaa muxuu noqon doonaa aakhiro miyo talow isku arki doontaan xaggeed ku kulmi doontaan adigase xaggee u socotaa waxaa idhi haddaan dhinto ehelkayga ma og yihiin xaq inaan ku dhintay mise inaan baadi ku dhintay maxay og yihiin waxaan kaloo xusuustay qoyskayga ka waran hadduu waalidkaa dhinto ilaahay ma qadara hadeertaan adigana aad ka fog tahay aabbaha ma isagoo raalli kaa ah ayuu dhintay mise muxuu ku dhintay ka waran haddii wax ay kugu dhacaan qoyskaaga qof ka mida ay wax ku dhacaan ka waran haddii laftirkaaga aad dhimato adigoon ehelkaaga meel aad joogto iyo janaasadaada meel lagu tukada ama lagugu aasaysan aqoonin su-aalaha badan baan isweydiiyey oo aad iyo aad aan uga fakaray waxaan ogaaday waddada dariiqa inaan ku socday in kaleba inaan ka fakara ayaan go'aansaday
su-aalahaasi oo dhan waxay ahaayeen ku maskaxdayda aad iyo aad ugu wareego laakiin waxay leedahay markii dambe waxaan go'aansaday bay leedahay inaan reerkanaga usoo laabto aabbahay haddii aan kala kulmo inuu i dilo aan iska dhinto maalinka adduunyo iigu dambaysa ay noqoto haddii ay dhacdo inuu qalbigiisa ilaahay ii furu isoo dhaweeyana aan noqdo maalinkii iigu horreeya adduunyada nicno aan ku noolaado waxay leedahay qofna uma aanan sheegin dadkii ila deganaa gabdhihii meeshii la degnaa dharkaygii alaabtaydii baan soo xirtay 8 bisha May bay ahayd waxaan soo aaday guriga qoyskayga uu deganaa anigoo markaa isaga qalbigayga wadnahaydana uu aad u gariirayo cabsi fara badan ay igu jirto hilow fara badanna reerkanagii aan u hayo waxaan aaday reerkanagii ma aanan ka helin qof jooga ma joogin guriga markaa qofna kuma uusan jirin deriskanagii ayaan ku sugay kuwaasoo xiriir adag aan la lahaa markii hore guriga aan joogay cabaar markaan sugay bay teleefon aabba u direen waxay ku yidhaahdeen gabadhaadii way soo laabatay ilbiriqsiyadii aabba teleefonka loo sheegay intii uu soo socday waxaan la mid ahaa sida dhagax meel yaallo oo kale dhaqdhaqaaq waan waaye ma carargi kara wax aan sameeya ma garanayo mawqifkaygii taa ayuu ahaa zaynab markaa way aamustay gabadha zaynab waxa ay leedahay waan istaagay bay tiri waan gilgishay kadib markuu aabbahay albaabka ka soo galay aan arkay ayaan istaagay waxaan isiri bay tiri goormuu dharbaaxada iyo feerka kugu bilaabayaa goormuu ku dhihi doona maxaa ku soo celiyey duli yahay aabbahay labadii gacmood buu tuusaa u furay buu yidhi gabadhayda kaalay xabadkii aan kugu qabtee waan soo cararay waan ooye dhabtiisii baan ku fadhiistay aad baan u ooyey bay leedahay waxay ahayd xaalad aad iyo aad u adag laakiin awood iyo kalsooni ii siyaadisay iyo geesinimo waxaan dareemay bay leedahay in aan soo ceshaday aqoontii iyo awooddii aan reerkayga u lahaa iyo kalsoonidii inaan dib u soo ceshaday ayaan dareemay cod khushuuc uu ku jiro dareen adagna uu ku jiro ayaa waxay leedahay gabadha ayada ah waxaan mar walba ku fakaraa ilaahay inuu ghafuur raxiim yahay ilaahay ma uusan doonaynin inaan ku geeriyoodo kaniisadii iyo shartii aan ku noolaa ilaahay ma uusan doonaynin ama waxa ay sameeyeen qolyaha sharta badan baadariyaasha iga dhex saaray muslimiinta iyo reerkayga iyo siday ugu cayaareen caqiidadayda inaan ku dhinto ilaahay ma uusan doonaynin waxaan arkay qoyskaygii oo dhan oo ila dhaqmayo dhaqankii hore mid ka fiican aad iyo aad ii jeclaaday quluubtooda ii furay aabbahay markaan u sheegay inaan ahay gabar wareersan maskaxdeeda su'aalo badan ay ku jiraan oo diinta ay qabsato ay garan la'adaa u arkay wuxuu go'aansaday inuusan cadaadiska i saarin yaa waxaan kuu sheegay xageed ka keentay diintaadii maxaad u bedeshay inuusan dhihin ayuu aabbahay bilaabay muddadaa iyadaa intuu aabba iga aamusnaa ilaahay wuxuu ii sahlay dhalinyaro diinta islaamka aad u garanayo aad iyo aadna u garanay meelaha shayaadiinta iyo gaalada ay dadka ka soo galaan waxay leedahay gabadha waxa aan bilaabay qoladan aan bartay ayaa waxaan bilaabay inaan u sheego meelaha baaltooga ay qolyahan ku leeyihiin iyo waxaan ku yidhi war meesha iyada gala oo dadkan iyagaa dadka fasahaadinayo kaalaya la hadla zakariya budrus nin la yidhaahday rag lamida ayaa islaamka ku aflagaadeeya rasuul maxamed sala allahu calayh wasalamna ku caaya meesha inta qolalka islaamka ay jiraan baaltoogna anigu ma aanan baranin oo waxba kama aanan garanayn ayaan u sheegay waxay leedahay su-aal walbo aan gabdhaha wiilashan iyo gabdhahan usoo bandhigo jawaabo ayaan u helay oo i siiyeen waxay leedahay waxaan la yaabay da'dooda siday u yar tahay kan ugu weyn 7 sano ayuu iga weyn yahay haddana su-aalihii iyo jahwareerihii iga saara diinta islaamka ayaan ka helay jawaabahooda inay ii hayaan waxay leedahay waan garab istaagay dhalinyarada iyaga ah dhinacoodii ayaan istaagay waxaan bilaabay caqiidadii iyo diinkayga inaan soo ceshado rasuul maxamed sala allahu calayh wasalama hadalkiisii baan xusuustay oo ah mathalu lmu'miniina fii tawaadudihim wa taraaxumihim ka mathali ljasadi alwaaxidi dadka muslimiinta isjacaylkooda iyo isu naxariisadooda waxay la mid tahay jirka bini aadamka halka ayuu la mid yahay xibin ka mid a hadday xanuunsato xubnaha kale way isu habarwacdaan si ay u xanuunsadaan waxay leedahay waxaan ka mid ahay qayb ka mid a ummadda muslimka ayaan ahay ee aniga unbaa ka fallaagooway xaqiiqda jirta qalbiga ee ku jirana aanan u sheegin gabadhan waxay leedahay waxay isiiyeen ilmahan iyo wiilashan gabdhahan aan bartay kutub islaam oo fara badan bay isiiyeen oo turjuman carabi ku turjuman kutub waxay isiiyeen dooda kirishtanka iyo muslimiinta ay ku doodeen ee la qoray bay isiiyeen si aan bal u qaato khiyaarka wanaagsan si aan u qaato diinta aan raacayo gabadhan waxay leedahay
geesinimadoodii iyo dareenkoodii wuxuu igu kallifay inaan markii dambe ku dhiirageliyo zakariya budrus